السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبيني مو وناكسنا خيارتنا داوانا إسرائيل يكسر كتبتان ضعفاء عالمك كسر دواد عاو حندين هيني عاو حندين هينا وحكوين حفلة دي وحندون هينا عاو اعتراف كسومالي لان لقو تاجيري مقالة دان تورنتو دلك كندا كدعي oo ay ka soo qayb galeen bulshooyinka ku nool magaaladan Toronto ee Somalilanderka ah iyo nawaaxigeeda ilaa Hamilton ilaa Barrie la isaga yimid caawa xafladu aad bay u shidneed indhihiina ku arki doontaan runtii caawa waxay lama arkaan waxa halkaa joogay safiirka Israa'iil ee u fadhiya dalkan Canada Israa'iil iyo gudoomiyaha jaaliyadda Cabdiraxmaan Jaamac Batuun ee magaalada Toronto bal waxaan ku horeynaynaa safiirka Israa'iil ee Toronto halkaa wuxuu ka yiri What a great evening to be here with all of you. There are moments in history when something that has long existed is finally acknowledged, when reality, patient and persistent, is at last called by its proper name. December 26, 2025 was such a moment. On that day, Israel recognized the Republic of Somaliland as an independent and sovereign state. Not to create something new, to acknowledge something real. For 35 years, Somaliland has governed itself, held elections, peaceful transfers of power, institutions that function. For 35 years, this reality was ignored. Israel chose to say what was already true. History offers guideposts. In June 1960, Somaliland gained independence from Britain. 35 countries recognized it, including Israel. Days later, Somaliland voluntarily, and I repeat, voluntarily, chose union with Somalia. The hope collapsed into dictatorship, civil war, and mass atrocities. 200,000 lives were lost. In 1991, Somaliland reclaimed its independence as an existential necessity. Since then, you have built something rare, a democracy that works. In November 2024, elections confirmed it once again. Power changed hands peacefully. The results were accepted. The system held in a region where elections often trigger violence. Your renewed legitimacy is rare. Israel recognizes this because we recognize ourselves in it. We too emerged from the end of a British mandate. We too built democracy under constant threat. We too learned that legitimacy is not granted by applause abroad, but earned at home. The African Union 2025 fact-finding mission called Somaliland's claim historically unique and self-justified. This was 20 years ago. The facts have only grown stronger. You are not claiming another land. You are assessing sovereignty. sidoo kale waxa halkaa ka hadlay gudoomiye Cabdiraxmaan Jaamac Batuun oo isna halkaa hadal ka yiri qiimo badan isagana waa kane rasiida Cabdiraxmaan dhammaantiin marka hore aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida sharafta loo uga soo qayb gasheen munaasabadan ballaaran dhammaanteedba aynu ugu xusayno mar labaad oo Somaliland la aqoonsaday oo aqoonsatay dowladda Israel. sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan uga mahadnaqo dhammaan xubnihii hawshaa soo qabanqaabiyey guddidii qabanqaabada sidoo kale xubnaha guddida fulinta iyo sidoo kale odayaashii mustambeedka ahaa. Somaliland taariikh dheer yaa loo soo maray iyo dhammaan garabka haweenka
afar iyo soddon sano wixii aynu sugaynay maanta un baynu helnay mas-uuliyad baa dhammaanteen bay naga wada saaran qof waloo halkan jooga qof waloo hadalkayga maqlaya mas-uuliyad baa saaran waa ambassador sidoo kale waxaan qof walba ku dardaarayaa in aynu mar walba midnimadeena aynu ilaashanno wada jirkeenna aynu mar walba ka foojignaano wixii inu soo food saara sidoo kale dal mas-uul aynu nahay horena waynu ahay uma baahnin maanta dadka qaarkood inaynu qancinno inaynuu jawaabno waxayna laga rabaa inaynu muujinno dad dowladdooda iyo dalkooda ku xidhan wanaaggana isfaraya sidoo kale waxaan halkan baaq u marinayaa dhammaan dadkeena reer somaliland meel kastoo ay joogaan gaar ahaan kuwa gudaha inay nabadgelyadooda ay meel uga soo wareejeestaan inay nabadgelyadooda ilaashadaan in wax waloo soo food saarana ay garab siiyaan sidoo kale dalalka dariskaynala ah runtii somaliland horena cid umay daandaansan jirin iminkana uma socoto inay cid ay daansato inay isdaandaansadaan laakiinse waxaynu ka rajaynaynaa dhammaan dalalka dariskeenna inaynu nabad u wada noolaano sidoo kale somalilanderka ku nool magaaladan torriye agaarkeeda sidaan idiin sheegay oo caawa ku soo bandhigay shucuurtooda magaalada toronto iyo xafladdii caawa sida u shideen baldaawada waxaan idiin hayaa wax yaroo wara caawa maadaama caawa ay ahayd xafladdii lagu taageerayey ictiraafka somalilan taasoo caawa ahayd markaa caawa xaggaasaan ku mashquulsaneen balin yaroo wararaan idiin hayaa intaa daawada sidoo kale wararkaan idiin hayno waxa ugu dooroon wararka soomaalida dowladda maraykanka ayaa dalku galka u diiday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo doonaya inuu new york sanadkan kaga qayb galo shirweynaha golaha ammaanka isagoo weliba doonayay inuu shirgudoomiyo golaha dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha maraykanka shirkii Davos Switzerland badada caalamka horteeda ku qaawiyey Soomaaliya isagoo si weyn ugu balbalaadiyay sheegana in Soomaaliya wax dawlad la yiraahdo aanay jirin oo ay yihiin dad burcada oo dadka dhaca sidoo kale uu sheegay in caawimooyinka la siiyana ay dib u dhacaan madaxweynaha maraykanka ayaa hadallada ka yidhi shirka Davos nin ka soo jeeda Somaliland ayaa xalay dharbaaxo wajiga kaga dhuftay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Mustarfiqi oo loo yaqaano Xuub Caaro xilli uu ka soo baxay shir uu ku lahaa hotel Sheraton ee dalka Qatar wasiirka ayaa kulan ku lahaa Sheraton Hotel waxaana markii uu ka soo baxay albaabka hore uu la kulmay Mustafa oo ahaa darawal taxi Mustafa iyo Fiqi ayaa hadal isweydaarsaday kadibna Mustafa ayaa dhirbaxay Fiqi halkaas oo booliisku isla markiiba ay qabteen Mustafa wuxuu ka soo jeedaa Somaliland gaar ahaan Burco Mustafa ayaa su'aal weydiiyay maxaa ku daba dhigay Somaliland sidaasay ku timid sheekadu dhirbaxadu daawadayaal caawa waxaan idiin haynay waa naga intaa war tan iyo intaan dib u kulmayno habeenimo wanaagsan channelkan badiya berri like iyo share comment please ku dhufta subscribe bye